maanta si looga dhaadhico ku adkaanaysaa cudurraa soo bixi karo oo markay meesha tagaan dadku waa bedelmaan la leeyahay annaga marka laba midaan nahay inaan annagana ka midnahay siduu ilaahay sheegay oo ahaa fircoon markii la yidhi keligiis dembiga lama saarin waxaa la yidhi fastaqafa qowmahu fa adaacuuh innahum kaanuu qowman faasiqiina dadkii madaxdii iyo annagii waxaynoo dhanba inaan iska wada adeecno dulmiga ku raacnay annagana faasiqiintina ila lagaa reebi maa berri madaxdii axmed keliya shacabka laga yeeli maa mugta inaan noocaas nahay iyo inaan xaasidiin nahay aan qabala nahay because xaasidnimada dhibay kantaa ninkii waxaa jirta qasiira idiin sheegay xujaaj bin yuusuf webiga intuu ku dhacay isagoo dabaalanayo nin dhalinyaraha inta boodu markuu biyihii 2 jeer ka baday webiga furaad inta boodu ka soo bixi markaasay odayaasha ku qayliyeen markaasay inaan xujaaj oo maanta naga dhima lahaa oo ilaahayna dhaafsi maxaa noogu soo bixisay wiilka inta qoslo yiri waxaan diidanaayo waxaan maqlo yiri xadiis nabiga uu leeyahay ninka biyaha ku dhintay shahiid waayo marka xujaaj inuu shahiid noqdo u diidanaayo annaga markii inaan xaasidiintaas nahay oo ninkii qalad ku socda aan qabalaanahay koodhe iyo inaan nahay faasiqiinta labada mid ay noqonaysaa xaqiiqadu waxaa fiican kartaada inaan qaadato midda kale waxaan qabaa aniga marka halka waxaan ka dhigaynaa inaan horta intay istaagna ama aan wax qabanno oo xaasidnimada aan iska reebno wax fiican waayo oo aan la soo istaagna aan xasan oo xasankaan shala naqiinay noqo oo halkan la soo istaag waa qodobka labaad wuxuu noqonayaa dembiga dowladda ma laha dowladdan oo executive-ka qaybta ah dembi ay leedahay male maba la gaarin garsoor iyo wax la dhisay ma jiraanba qaladka ugu weyn ee waddankan ka dhacaya wax iskale waxa waa hay-addan legislative-ka waa baarlamaanka waa meeshii adduunyada ka hadlawda ee ka qadsan tahay oo dowlad fiican aan kala anahay oo maamulkeena dhan uu ku xun yahay baarlamaanka waa hadduu baarlamaankaas fiicnaa lahaa xukuumad fiicanaa ka imaan lahayd madax fiican waa ka imaan lahayd hal tusaale aan idiin soo qaadaa xalay u dambeysay Donald Trump waxaa lagu haystay oo lagula dheganaa xafiis ka tirsan oo budgetka iyo managementiga u wada White House wixii lacagihiin joojiha ayuu dhahay federal uu sameeyay kullu laga hor yimid ka kacaleer waxa ka jooji karta ma lahayn lacag jooji kartana ma lahayn ama caafimaad ha ku baxdo ama meel walba ha ku baxdo waa lagu diidanaa waa xafiis ku diidanaa si gabadha hadlaysi oo ahaaday speakerkiisi dhinac u fasirtay garaweysi senatka ku kacay republicanka uu taa ku kacay fiiri marka shalay isku beelay ahayn maan leenahay nimanka shalay asiga wato waxa u dhisi karnaa waxa baarlamaanku markaan cilada ku leeyahay aniga meesha naga qaban karta ninkan baarlamaanka waa sababta aan ka hadlayna marka waxa hadduu baarlamaankan maalmihii la dhisi jiray tii hore waa ogeedeen oo maleeha dhulsuma reeb iyo sheekadii aan wadin marka laga soo baxo hadal waxaa jiro cid aan ku eriyo maalintaas Zainab inay ku jirtaan oo maleeha tiimkaas waxaan ku eri almiin aan dhigno warqad A4 dadka xildhibaanada soo doonahay هل ويدي قفك responsibility iyo duties-ka MB-ga laga rabo maxay tahay kaliya ka jawaab ninaan intaas fahamsanayn shaqada uu doonaha waxa laga rabo ilaa hadda aan fahamsanayn baarlamaanku u fadhiyo hal tusaale idin si aniga shaqooyin aan la qabaha jirta oo barna aan sameeyeen kuwa isleedahay waa ugu fiican yihiin gudiyadooda wixii ku soo jeedinayaan annaga niyood meeshan aan lagu haysan naga dhaaftaa barnaamij dibadda loo qaado dibadna rabnaa waxaan iri maxaa ku falaysaa dibadda aqoontii lagu keenay gurigaada lagu keenay shaqadaada lagu keenay jawaabtii siin mataqaanaa hal jawaabi ku wadashaan inta anagoo fadhin waana la soo wacaa odayga nabadoonkana soo wacaa wuxuu leeyahay hebel la xiray ama canuga shaqada laga saaray waa baxayna saan wax ku baran karnaa marka meel ina baxno waa aan dibadda sagno aan sigal fiiri meesha laga hadlaa arag xildhibaankeen intuu taagan yahay fiiri qiimihiisa marka xildhibaan noocaas dawlad uu ku dhiso dawladna ha ka sugan maamul fiican ha ka sugan wasiiradii saaxiibadiisa ahaa John F Kennedy kii la dhashay oo wasiirka caafimaadka tan xal ku dhicaysa cid fiirsto waa ogtaa ma leh waa wada aragteen ya xilaa loo dhiibay xilka loo dhiibay fatana lagu sameeyaa baarlamaanka ku dhagan waxaa laga hadlaa conflict of interest caafimaadka loo dhiibay asaa wuxuu sameey jiray baalahan sheeg talaalka iyo howlahaas waxa uu ka shaqeey jiray iyo loo siid iyo dad badan oo lacag soo galay iyo lacag u dawladda ka qaata lagu haystaa isma laha wali markaas leeyahay saynkaaga badbaadayna loo siidka abarigoodi talaaladan aad sameeyay vaccination-kan iyo adigoo maanta xilka u haayo meel uu maru leeyahay fiiri marka waxa waa mushkiladda dawladda meesha ka dhisanto ay ka dhaqaaqayso waa baarlamaanka anaga we have to think twice baarlamaanka dhismi doona aan ka fikirno noocyo kale aan loo naqanin qaabka sabab ku yimaado qaab kale aan sameeyno mid aan u baahno kale waxa waa marka xalka kale oo nooxiga waxa waa inaan sameeyno institution xoog leh haddaysan institutionada xoog lahayn shaqo ku socomayso wax qaba karaana ma jiro institution xoog leh wuxuu ku faanaa waxa waa human resources uu haysto dadka uu qaadanayo inay ahaadaan dadka ehelka u ahaa hawshaas la qabanayo midda kale ay soo qaateen haday Zainab ka dhawaashay inclusivity-ga in wixii oo dhan ay wada jir ugu jiraan dadka inclusivity-ga marka waxa ku soo galayso tii bulshada galaysa waxa galaysa siyaasadii ku galaysa wax loo wada dhan yahay ummaddu ku wada jirto
dhinac kastaba la iska dhex arki karo qof walbaba uu qaanac ku naqahayo laakiin haddaa tira ilaahu may naqato 10 isla dhalata ha qabato xilkaas laakiin ha ahaadaan 10 isla dhalatay ee ummadda marka fartan lagu sameeyo ee marxaba dhahayan gacanta u wada taagayaan taasna waa muhiim waxaa kaloo fiican iyadana aan wax ku hagaajin karnaa waxaa ah in shaqooyinka ay la imaanayaan dawladdu ama dadka maamulka ah inay ahaato mid ka timid maskax Soomaaliyeed ya Somaliland initiative inay noqoto because hay'adan ama wadankan wuxuu ku siinaa macaawinada uu ku siiyaa warqad cad uu ku dhiibtay war intaas oo lacag aan ku hayo soo sameeyay ku yiri annaga ma dhahayna soo sameeyay kama sugnaado in la yiraahdo ayaga inta ku soo sameeyo waxa la leeyahay saxiix hay'adda loo keenaa wasiirka loo keenaa markaasuu leeyahay ma badixan ku saxiixa ma midigan ku saxiixa ma anu sii jeedan kugu saxiixa masuulan saara isag ma akhriyaa hatta that's the point reality meesha taala taas laakiin markay tahay initiative Soomaali ka timid oo ku bees gareysan dhaqankaada iyo dhibaatadaada iyo baahidaada meel fiican ku tagaysa initiative waa in aad mid Soomaali ka timid waxyaabaha aan wax ku hagaajin karno corruption kaas inaan la dagaalno institution xoog leh inaan dhisno baarlamaankana talaabada kuwaad ee la qaaday aan ka fikirno baarlamaan noocaan inuu noo soo noqonin mahma kana duruuf cid si kastaba ha lagu sameeyo ama mid dadban oo toosan ha la keeno ama mid maroogsan ha la keeno ama one man one vote ha la aado dad fiican waa inuu soo galaan baarlamaanka nooc rabana aado